Kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aanu xilligan oo kale si toos ah kugu soo gudbino. Haddii aan ku bilaabay kooxda Manchester United iyo Chelsea ayaa la sheegayaa inay isku haystaan daayarka kooxda Brighton ninka la yiraahdo Evan Ferguson kaasoo si aad u daneynayaan labada kooxood. Waxaa la sheegay in kooxda Manchester United iyo Chelsea ay labaduba dalab ay ka gudbiyeen daayarkan kooxda Brighton. inkastoo Brighton ay sheegtay horaantii bishan in xiddigan aysan iibin doonin, haddana waxay u muuqataa in kooxahan ay doonayaan in dhaqaalo ay xiddigan ku soo qaadi karaan ay u bandhigaan kooxdani reer England. Ma jiro wax hadal oo ka soo baxa dhanka Brighton oo la xiriira in ay daayarkani 19 jirka ah ay iibin doonaan in kale. Kooxda Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa labaduba waxa ay sheegeen inay daneynayaan in ay ka wada hadlaan ciyaaryahanka Davies. Waxaa la sheegay in ay kooxda Real Madrid ay doonayso inay Bayern arrintan ay kala xaajooto. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay inay iminka ay suuragal tahay inay Bayern ogolaato inay ka iibiso, iyadoo Carlos Ancelotti uu sheegay waa tababaraha Real Madrid inuu xiddigan oo bartilmaameedka koowaad u yahay xagaygan. Kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale waxa ay tartan la galaysaa kooxda Man United iyagoo doonaya ciyaaryahanka Tedebo oo si weyn ay kooxda Man United u baadigoobaysay toddobaadadii u dhameeyay. Kooxda Nice ee reer France ayay xiddigan ka doonayaan labada kooxoodba, inkastoo ay kooxda reer France ee Nice aysan weli ka hadlin dalabka kooxahan ka soo gaaraya. Bayern sidoo kale waxay hesha ku haysaa kooxda Lens ciyaaryahankooda Danso, iyadoo sheegtay in Kevin Danso uu yahay ciyaaryahan dhinaca difaaca ku wanaagsan, isla markaasna ay suuragal tahay inuu yahay beddelka Davies oo ay doonayso in kooxda Real ay ka iibiso. Ma jiro wax hadal oo Lens ka soo baxay, laakiin Real iyo Bayern Munich oo iyagu wada hadal Davies la xiriira waday ayaa haddana Bayern waxa ay sheegtay inay isha ku hayso daayarkan oo ah mid si weyn ay uga heshay qaab ciyaareedkiisa. Kevin Danso waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan horyaalka dalka Faransiiska. Kooxda Chelsea waxay sheegtay inay doonayso in ciyaaryahanka Armando Broja ay iibiso, iyadoo ay dalab ka helayso kooxaha Fulham iyo West Ham United. Wolves ayaa sidoo kale maanta ku soo biirtay in daayarkani ay qaataan. Kooxda Wolves United ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in lacagta ay ku doonayso Chelsea ay bixiso, laakiin lacag 50 milyan ah ayaa xiddigan la sheegay toddobaad ka hor in Chelsea ku doonayso inay ku iibiso, sida wargeyska Telegraph uu leeyahay. Kooxda Arsenal ayaa kooxda Paris Saint-Germain waxa ay kala xaajoonaysaa daayarka kooxda RB Leipzig ku jooga amaahda ninka leedahay Xavi Simons kaasoo qaab ciyaareed wanaagsan ku jira. Isla markaasina ciyaaryahankan daayarka Red Dutch ayay u aragtaa Arsenal inuu yahay ciyaaryahan qadka dhexe ku wanaagsan, iyadoo tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta uu maanta dalab ka gudbiyay PSG ayuu arrintan kala xaajoonayaa. Waxaa suuragal ah inay ka ogolaato la leeyahay maadaama haatan uu amaah kaga maqan yahay. Suuragalna waxa ay noqon kartaa in PSG ay ka ogolaato in xiddigan ay dib ugu yeerto, dabadeedna ay kooxda Arsenal ku wareejiso meel kale hantiisa. Arsenal ayaa suuqa si weyn ugu jirta, iyadoo ay kala dhibaatoonayso ciyaaryahanada qadka dhexe afka hore iyo difaaca oo si weyn Arteta u doonayo ka hor bisha intaysan xilmi January inuu suuqa kala soo wareego. Barcelona, Athletic Madrid ayaa iyaguna ku soo biiray tartanka loogu jiro ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Man City Calvin Phillips. Waxaa la sheegay inay doonayaan in ciyaaryahankan ay la wareegaan. Man City waxay doonaysaa in Calvin ay ku bixiso amaah oo ay lacag ay la socoto, laakiin xiddigan ayaa la dhibaatoonaya boos la'aan uusan ka haysan kooxda ka dhisan Etihad Stadium, isagoo doonaya inuu boos joogta uu helo. Isla markaasina waxa ay u muuqataa inuu bishan ka bixi doono Etihad Stadium. Calvin 45 milyan oo pound ay ugu soo biiray sanadkii hore kooxda Man City, asagoo kaga soo biiray kooxda Leeds United, laakiin haatan xaaladda ayaa ku adag maadaama uusan boos joogta haysan. Barcelona, Athletic Madrid labadaba xiisaha ay u hayaan Man City ay u gudbiyeen maanta. Man City-na weli uma aysan jawaabin, sida uu leeyahay wargeyska Telegraph. Kooxda Tottenham ayaa iyadu sheegtay inay doonayso in xiddiga kale oo muhiim ah ay keento oo saxiix cusub ay samayso. Xilli ay saxiix cusub samaysay waxayna raadarka u saaran tahay oo ay diiradda ku haysaa ciyaartoyda horyaalka dalka Isbaanishka ka ciyaara ciyaaryahanka Griezmann ee kooxda Athletic Madrid. Waxay sheegtay in xiddigaasi ay si aad u daneynayso. Gooldhaliyaha reer France ayay sheegtay inay doonayso in Athletic kala xaajooto, qiimaha ma aysan sheegin inay ugu doonayso. Hadalkan wuxuu imaanayaa xilli uu Griezmann u dhiisu sheegay bilowgii bishan inuusan doonayn inuu ka tago kooxda Athletic Madrid, uu doonayo inuu maaliyadda Athletic uu ku fadhiisto oo ciyaaraha kaga fadhiisto, isla markaasna uu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda Athletic Madrid.
ugu dambeyntiina haddii aan soo qaato waxaa soo ifbaxaya khilaafka ka dhex qarxay ciyaaryahanka reer France Antonio Martial iyo tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag. waxaa la sheegay inay taasi oo khilaafka iminka uu bannaanka yimid isla markaasina tababaraha kooxda Man United xidigana u sheegay inuu tababar si gaar ah kaligiis u sameeyo taasoo uu ku ciqaabayo ma oga sababta keentay laakiin waxaa la sheegay in khilaafkooda bannaanka uu soo baxay. arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli Martial uu sheegay inuu doonayo inuu ka tago Old Trafford. Man United ay ku dhawaaqday maalnimadii shalay toban xidigan uu ka mid yahay xidigaha ay doonayso in bishan January ay fasaxdo. waagaagda wadaarintaas ayaan ku soo afmeeraya wararkii ciyaaraha ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda. intaan warkan mid lamid aan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.